goormaa ugu fiican oo istighfaarta la sameeyaa ama ilaahay dembi dhaaf la weydiista. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. walaalayaal meeloola joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalayaal, xalaqadii la soo dhaa waxaan ka soo sheekaynay waqtiyada istighfaarta la sameeyo inay tahay 3 waqti ugu muhiimsan tahay. tan koobaad waxaan dhahnay markaa camal wanaagsan ku dhex jirtid ama intaadan samaynin ama markaa samaysid kadib. maantana waxaan ka sheekaynaynaa qaybta labaad ama waqtiga labaad oo istighfaarta la sameeyo ama ilaahay dembi dhaaf la weydiisto. walaalayaal, qaybta labaad dadka badi waa yaqaanaan. qofka markuu dembi sameeyo waa inuu istighfaar la yimaado. haddaba istighfaar sidee uhuu la imaana? walaalayaal, saan ognahay ibni aadanaan nahay. qof walboo annaga naga mid ah maalinuu dembi samaynaa, ama dembiga ha yaraado ama ha weynaado. sidaa darteed qofka markuu dembi galo waxaa laaga baahan yahay 3 arrin inuu la yimaado insha allah. tan ugu horeyso inuu ilaahay u toobad keeno. toobadkeen maxaa laga wadaa? toobadkeen walaalayaal waxaa la yiraahdaa qofka dembigu ku jiro marka hore inuu joojiyo ama uu faraha kala baxo. taas waa tan ugu horeyso. asagoo dembiga ku jiro ama weli samaynayo waa toobadkeeni ma dhihi karo. tan labaadna waa inuu ka shalayo qofkeenu waxaan sameeyey. waa inuu xanuun dareemo inuu dembi sameeyey. haddaa xanuun aadan dareemin ama aadan ka shalaynin, toobadaada waa naaqis ama aad ku faanaysid. taas waa kasii daran tahay. tan saddexaad oo laaga baahan yahay qofku markuu toobad keenayo waxaa waaye waa inuu go'aansado, ilaahay ka ballan qaado inuusan mar kale samaynaynin waxaan. taas waxay qaybta koobaad. arrinta labaad oo laga baahan yahay qofka markuu dembi sameeyo waxay tahay salaata tawba inuu tukado. waa arrin aad u wanaagsan waaye. isbuuc hadda la soo dhaafaan ka soo sheekeeyey, linkigeedana waa ku soo daraa. salaata tawba goormaa la tukadaa iyo faa'iidadeeda si fiican u dhageyso. si gaaban aan kuu siina hadda insha Allah. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri adoon ma jiro dembi galay kadibna weysaysanay kadibna 2 ragcad tukanay kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiisanayo ilaa ilaahay uu dembi dhaafaa. tan saddexaad oo ugu muhiimsan cinwaankeena bayahay waxaa waaye qofka markuu dembi galo istighfaarta inuu badiyo. astaghfirullah wa atuubu ilayh. siiq istighfaar waa ka soo sheekaynay. ha dhageysto 3daas arrin qofkii sameeyo muxuu helaa 2 arrin oo aad u weyn ayuu helaa. wuxuu helaa dembi dhaaf iyo janno inuu galo. hal aayo iyo 2 xadiis ayaan sheegaynay si fiican ugu tadabbur. ilaahay subxaanahu wa ta'ala suurat al-imran aayad 134 ilaa 136 wuxuu noogu sheegay qofka wanaagsan markuu dembi sameeyo uu ilaahay xasuusto u toobad keeno inuu ilaahay u dembi dhaafayo. إلهي سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا بدأتك أنت سوسمي إلهي محقوق أبا الجذا. أيضا سفي عود سورة العمران كجرت إلهي سبحانه وتعالى. ليس أرنتاس ويتربى ضنت هالكاس أيام كوجاب سنين سايدين شيء لبا حديث سايدين شيء. حديث ككواد وحديث قدسي. النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم دنبي يهدي عرك قارته أو إيتمادي دنبي دافئ ويديست واكو دنبي دافع. الله كريم. وحديث قدس النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أذنب ذنبي عبد أدونكي ذنبي وقالي كدبنا إله ذنبي داف ويديستي. إلهي وحولي أدونكي وحو أغاذي إنو ذنبي قالي ليهي إلهي ذنبي وعفين كرا أما كعقابي كرا كدبنا إله ذنبي داف ويديستي.
anigana u dambi dhaaf ayuu leeyahay xadiidkan saxiix muslim ku jira. ugu dambeyntii walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayna dembigeena inuu dhaafo, dembiga waalidkeena dhaafo, ahlu jannana naga dhigo. istikfaarta fadaa'isheeda maxaa waaye? su-aal weyn soo maahan. waa inuu xalaqada soo socod insha allah tacaala walaalihiina kalena usii gudbi. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.